نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد مادة إنه صامرنا منكي دماء الأسدي الرسول كويلي عليه الصلاة والسلام تفبان كو هيا أدكو عافي ماضيسا وانكو الضبيبا يا وما ضد الرقية دا نقارت الرقية الشرعية دوان نقانا ومجي نايما كاني وقتها جاهلية حيودتك كو أخري جروكو دوين جري إن صوابك الله وافتشي إمك موبهنين إذا دمر كان النبي عليه الصلاة والسلام رقية مركو النهي وحي نقول السنة وين وشكت علماء مركز مشروع تعالى دواء وحي آيات حديثيه مركزي معوذات كصار ورقفك الله واقريه يضر ريقي عدوفا أما النافر الله راعينه مدد لكن له قدحان رقا وحي مركز كوبنتي سدح مادو أو متباين وهو شغال سكول هاي رقيو سida radiyo kala ah oo sacida kuritaanka weeyaan markuu koro iyadoo raqaa ah waanu qofku akhriyo wax la akhriyo oo ruqyo la yiraahdo hada al-uudatu qofka sharkan iyo xanuunkan laga magan garinaya ilaahay deedoo raqaa weey arqa yarqa تيسوم مرنا مركز سواد جرنسا تقول الرقوة الله يراها وقطعة من الأرض وهذه دين عيسى والله يقعنا مركز ده حماد دوك اللي دوّن الشقيس كلها هاي أي مركز تحيف وحينو بلابا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام سنوات محن وكسو جري سوماها وإن لكل محنة منحة qofka muslimka waa inuu ogaado adduunyadan markastay mixnadi soo marto hadiyadii iyo farajkii iyo cisigiiba uu ku xiga waatan markaas nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam aamul husni buu ka soo baxay خديجة دمتي أبو طالب دمتي رسولك لبا وزير باي وهاي بدنا هو وزير كمركزي خارجي أرمها الدفاع بدأ وأبو طالب وها وداركو قلي أو قريشكو بيني إني النبي محمد اللي باتسوه قارسيان عليه الصلاة والسلام شيرو عرض الله يبركينا كومي من كرام بولي وانا سيدي بودع عدما ما ننتو لكن عرض جيف صدي وكو soo marxsadeen iskiga tagay oo daa'if tagay oo laga soo eriyay oo maka ku soo noqday oo magangeliye ku soo galay oo suhaftu fahadi iyo wax magaratadina ay hareeraha ka galeen laakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam arinta ma ka joogsanin dacwadiisa kama joojin kama leexinin manu tanaasurin mana khafiifinin waqii qabaylkii oo dhex maray ilaahay uu soo diray reeran saareed daa'ifadii markaasi لبناتكي ugu horeeyay islaamnimadii reer Ansaareed Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kii u soo diray u soo hagaajiyay u yimaadeen waxa kale oo Ilaahay ugu deeqay nabiga kaleey salaatu wasalaam soo beeshana adduunyada lagu xiriiri galiyay ma aha boqocad yar kooban oo ma kala yiraahdo oo niman ashyaakh oo Qurayshado sanadiis sheeganaya ay rasuulka dhibaato ku gaarsiiyeen muslimiinta dacwadin la weyteeyay iyaguna diideen dadkii kalena loo diiday inay qaataan waxa nabiga la geenayaa aafaaq ballaaran oo waasaca
malakuutka samada iyo cirka oo dhan baa la soo tusaya bal iyada lafteeda la dhaafinaya ilaaha markaas deemariyay dhulkaas oo dhan aayaadka al-kubra soo tusay waxa weeyaan dacwadiisa iyo isaga toona meel lagu ciliiri gelin maayo saasa loo sheegaya arintuna inuu markaas isbedel nasri imanayo ayaa loo sheegayaa israaga waxa la yiraahdaa waa guuraha habeenimo habeenkii la guureeyo micraajkuna waa aaladan sulamka la yiraahdo lagu karo wax laakiin aalada rasuulku ku koray samada waxay tahay deeman inoo sheegay micraajku waa korintii rasuulka samada la koriyay marka micraajkuna waa aalada lagu koro xagga sare israaguna waa guuraysiintii min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ilaahna subhanahu wa ta'ala daw qisada kaga waramay aaya waahida min suurati al-isra bilowgeeda ugu horeeya subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu ayatina min ayatina al-kubra Allah subhanahu wa ta'ala nabiga waxa loogu talagalay in la tuso markaasi aayaadkan ilaahay subhanahu wa ta'ala linuriyahu min ayatina al-kubra aayadaha waaweyn ajaayibta qudrada ilaahay dalaayishiisa waxa soo dhamma markaasi la tusay warasidatan wa baynama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam iyadoo waqtiyada kamida nabigu yamuru umarayo bi hadhihi al-marhala marhaladan ya xaaladan adag wa akhadhat ad-da'watu dacwadina waxa ay guda gashay tashuq inay jeexdo dariiqan wada jeexato bayna najaahi wal iddihaad dariiqa ay jeexanaysaa wuxuu u dhaxeeyaa najaaha iyo guusha iyo iddihaadka cadaadii dhibkii iyo qalabadii iyo qahrigii lagu waday wabadaad waxay bilowday waxa bilaabatay nujuum al-amal nidilada xidigaheedii baa muuqday tatarambax حالة هامد ومركز صوب داميس في آفاق بعيدة كهوي فوق بك بدامسة وقع واحد حادث الإسراء والمعراج شيء قام معراج كرسولك السمد الكوريي يدل منتي إسراء مركز حربك لقى قاضي إلا جي بيت المقدس حادث كأياد عضاض أياد عين واختلف في تعيين زمنه زمن كيس الله عيمنا واسخلافي على أقوال شتى بالسوء خلافه واختلف وحال اسكو خلافي في تعيين الزمن ورمد على إسراء معراجه إن العيم على أقوال شتى إنه قولا آدو كالدون بالسوء من خلافي وحال الله يسوء خلافي مد مسمد إن إسراء معراج جرو أرنتا ولا حقيقة أدلة صحاحة كبوحدة غير كود فربضان بحقيقة مهمة لغا hadlayana waa taa arintaas waa arin thaabita oo sugan nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam isagoo markaa jasada iyo ruuxan jirkiisa iyo naftiisa ay wada socdaan nabi kaleey salaatu wasalaam gogashii laga qaaday ee uu markaas xaramka joogay ma meesha xadiimka la yiraahdo xajriga ayuu jiifay ma baydku jiifay ما gurigii umahani gabadha cali ibn abdal walaalahay gurigeeda jiifay inta bar riwaayadka ku soo arooray ee jamciinteedana marka culimadu ay ku eegeen marka hore gurigaas uu jiifay malagu uu tagay bartaas uu ka dalooliyay guriga xagga sare bartaas marka laga dalooliyay si mufaaja'a ugu yimi iyadoo imika marka la tusayo tusaalahan in la doonayo markaas afaaqdiyo malakuudka sare loo qaado xagga sare la mariyo ama sida guriga markaas saqafkiisa loo kala dilaaciyay lagu tusayo qalbigiisana la kala dilaacinayo laabtiisa iyo sadrigiisa dadna xaramka la keenay halkaas laga diyaariyay nabiga kaleey salaatu wasalaam buraaqan la saarayna loogu keenay marka riwaayadu xaramkana uu joogay bi umahana gurigeeda uu joogay sida baa marka lagu jabcinaya waa laga qaaday habeen waahida uu soo maray meesha loo socdo bila bayt al-maqdis bartaas markii uu muhiimadii guteena samada la mariyay waa la dhaafiyay in ilaahay buu la kulmay salaadii baa la soo waajibiyay waa la soo celiyay gogashiisa iyo diiran baa lagu soo celiyay
gogashiisa oo diiran ayaa nabiga lagu soo celiyay kaleey salaatu wasalaam intaasoo dhan waxay dhacayaan iyadoo xaqiiqo tahay oo rasuulku soo jeedo oo markaasi waxay indhihiisu arkayaan qalbigiisuna uu sugayo waani qalbiga iyo markaa isbeeninaynin iyo markaa indhihiisu ay isbeeninaynin waana dhacdo qofka indhihiisa iyo qalbigiisu isbeeniyo oo indhihiisu ay tusaan khiyaaliga qof hebel ba halka taagan laakiin qalbigu yiraahdo waxa indhaha u aragteen hebel maaha oo qalbigu ku beeniyo way qalbigu wuxuu ogyahay hebelka halka laga filaya de wuxuu joogaa dhul qaaradaha kala ah oo halka ma bay iman karay marka sidaas oo kale ayaa qofka khiyaaligiisa wuxuu ku sawiran karaa wax indhuhu ay beeninayaan indhuhu shabax buu marka qalbigu sawiran karaa khiyaaliya indhuhu laakiin ay beeninayaan laakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam qalbiga iyo indhihiisu waa isku waafaqeen xadiiskani inuu dhacayna way shaad thaabitaan laakiin goormuu dhacay haday wax muhiimad ku xidhan yihiin laguma murmeen waxa dhici lahayd in la sugo markaasi habeenkii iyo markaasi waxay ahayd iyo markaa bishay ahayd iyo taariikhdu waxay ahayd waa nayloo cayimi lahaa oo hadii wax la xusayo xafalaad la dhigay iyo sheekooyin kale ay ku jiraan horay laga horeyn lahaa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisu u tilmaam lahaa saxaabadina arinta way sameyn lahaayeen iyaga markaa inooga horeyn lahaa muhiimadu markaa maba ahaba waqtigu inuu cayimo ayaan muhiimadu kuma jirin sida darteed baa culimadu ay qiyaaseen wayna isku khilaafeen sida tan isku khilaafeen faqiila waxa la kana lisraa'u suraa'u wuxuu dhacay fi sanati allati isla sanadkii buu dhacay sanadaas oo akramahu allah ilaahay rasuulka karaamay fiha sanada dhexdeeda binubuwati nabinimada lagu karaamay sabanka nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay nabinimada siiyay ayuu dhacay baa la yiri waqtaarahu dabari imam dabari baa doortay imam dabari ayaa soo doortay waqiila qowl kala wuxuu oranayaa oo waxa la yiri kana leelatul 27 habeenkii 27aad ayay ahayd baya waqiila kana ba'da al-mab'ath bayana waxay ahayd ka bacdi soo bixinta rasuulka kaleey salaatu wasalaam la soo bixiyay laga soo tiriyo bi 5 siniin 5 sanadood markii laga joogo warajaha dalika an-nawawi wal-qurtubi qowl kana waxa rajaxay imaam an-nawawi iyo markaa ninkii ustaadkii mufassirka qurtubi la oran jiray waqiila waxa kale la yiri qabla al-hijra وقيل waxa kale la yiri kaara leylatu as-sabi' tasalu jeeda wal-20 wa habeenkii 27aad min shahr ar-rajab bishr ar-rajab ay ahayd sana markaas 10 sanad al-10 min an-nubuwah wa sanadii 10aad ee nabinimada qowlka balata marka hoosta ka xariiq وقيل waxa la yiri oo kale قبل الهجرة ب16 شهرا انت رسولك سو هجرونين بشي مركاسي 16 بلاد كهر به هجرتي النبيga كهر 16 بلاد اي دعده معراج اسراء معراج ku dhacay ay fi Ramadan marka ay ku beegantay sana markaasi 12 min an-nubuwah 12 markii nabinimadu marka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu joogay uu haystay ilaahay marka ugu deeqay وقيل waxa kale oo la yiri قبل الهجرة ما وقيل قبل الهجرة با la yiri maxaynu ka boodnay bi 16 shahr waa sheegnay قبل الهجرة بسنة وشهرين هجرة inta aanay imanin hal sano iyo 2 bilood ay في المحرم سنة من النبوة maxay ka dhigantay bishii muharram laga bilaabo sanadka awalkiisa sanadaas oo sanadii 13aad sanadkaas oo dhan dhame sanadii markaasi 14aad 2 bilood ka soo go waxa weeyaan markaasi sanadka iyo 2 bilood ka hor hijradu intaanay dhicin oo 13 sano iyo waliba 2 bilood ka bacdi ay soo hijroonay rasuulku sanad iyo 2 bilood ka horna waxa dhacay mi'raajki israa'iil mi'raajki waa dhacay وقيل واحد قبل الهجرة بالسنة من هل سنة كهر انتانو سوى هجرون اي في الربيع الاول بشو مركا يتاهي الربيع الاول مركز السنة وحوالي المركز 13 من النبوة وصنة دي صدحية طبلات
وأنا مركزي كهريسي هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام هل سنة ربيع بعد ربيع إلا ربيع مركزي واحد نقول إنسا ربيع عصا مركا ودعي معراجك ربيع هذا كلنا وهو هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بالعامي أي رسول سوي هجرة مركز سندي أفريتونات بو سوي هجرة ويا مركزي هل كواحد هذا علماء الإسلام دينا صدحية تنص النضاد الرسول كانوا دعوة مكة كودي تنص النضاد ذا وكودي مدينة لكن قارموها معراجكم وحاول راجع حسن علماء إمامك وين حق علم السيرة مركا إمامك كان إسحاق لا محمد إسحاق وحول مركا بعد النبوة تنص النضاد كبعد أي معراج العام إذا واحد نقول قبل الهجرة ب3 سنوات صدح سنوات هجرة دي مركز النبي كهر الباني شيخ المركزي الباني رحمه الله تعالى ساسو المركز أظهر كواسطة آثار إيه مركز وحاب نصوص فربضنا وأسألوا لي وحالتها مركز ركب بدنا وكل راعين إنه معراجكم مركز اللو بدي قبل الهجرة صدح سنوات نبي نمدنا مركز كبعدي تبص النضال انتي أي جرتي وردت الأقوال الثلاثة بشيخ الله مبارك فوري كتاب كيسر نجينا الرحيقة أقواشها الردية صدح ذا الأولي هراء وردت الأقوال الثلاثة الأول صدح ذا أقوه الردية بأن خديجة حال الله لقول الدين يا خديجة رضي الله عنها توفيت والله وفصدر دمطي في رمضان سنة 10 من النبوة بشهر رمضان مركي مريسو سندي تبلاد النبي النبدا وكانت وفاتها لبشدد waxay ku beegneed qabla an tufrad salawaat al-khams shanti salaadood inta la waajibinin wala khilafa manajira wax khilaaf la yiraahdaa أن فرض الصلوات الخمس شنت الصلاة واجبين تودو كان ليلة الإسراء يهبينكي للديلمية رسولك عليه الصلاة والسلام على سوء واجبية أما الأقوال الثلاثة صدح دان قول الضنبه الباقية صدح دان ركس واحد فلم أجد من هرين بولين بارك فوري ما أرجح به واحدا منها هل صدح دان قول متكمل أن كل رجحه ما هيبول واحد دليل أن كل رجحه صدح دان كل رجحه غير لكن يقول لي أن سياق سورة الإسراء سورة الإسراء حق سياقه والصعد يدل عضينا على أن الإسراء متأخر جدا إن الإسراء آديات سورة سيكا ورمي سورة الإسراء سود جدا إنه تصنيسو ما سورة سامين موجوديسو إسراء إنه ها إنه دبيه سورة قلت ما سودي كواحد موجوديسا وقت دبينه ها قولك راجح لكن واقع صدح قوله هو الشيء مركزي قولك صدحاد ويا ربنا ويا مركزي انتان عن عراج إنه دبته خديج تبصر رود مركز لقى سو قدبي نبي نبي ده مركز وقت لقى سو صار الرسول كأيو داعي خديج أنا وقت جاء مركزي طبعا كاسن نضاد لقى شري أيه دمته صلاة مركز دشنت أنا ما يسوق قارين لكن صلاة كلين اللي تكتر الرسول كمشكل بقى كشر أحاديث صحيحة كسامرنا إن الرسول قال له تكتي صلاة لكن كهريس صلاة شنطة معراج كلا سو مركا وقتي معراج كلا سو واجبي ده iyadoo mar waxa jiray rasuulka isagoo salaada kula jirayeen oo kaliya khadiija cali ibn abu talib oo cid kale salaada tukanaysayba aan jirin walka joogtay wati xadiis saxiix ah markaas ku aragnay marka laba goor ba marka hadii salaadaha la kala waajibiyay markii hore salaadaha ayaa jiray la tukan jiray oo markaas inta waqtigii marka ciraaj u dhicin ka bacdina salaadaha shanta la soo waajibay وروى أئمة الحديث باورين هي تفاصيل هذه الوقعة وقعدا هي عددا إسراقة تفاصيل شيء فرحة بدن أئمة الحديث كأينا ورين هي وفي ما يلي سدة صوصع ترى نصردها وفي ما يلي هل كان هي صوصع نصردها وحن دليرين دون استبقريننا تفاصيل شخص وحكمها تفاصيل شخص ضميركم النقنية بإيجاز ولبس كوبا قال ابن القيم باوحى ولايهي ده وكور مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب كيس مركز هذه النبوية ساد المعاد
usriya birasuuli illaahi sala allah alay slam rasuulka waa la dheelmiyey bijasadihi cala saxiix jasadkiisaa la qaaday dee waxa uu jasadka u tilmaamaya haddaa qoraad iyagu diidan meel ruuxdoo keliya oo ayaa la dheelmiyo manaan baa ahayd iyo riyo dee manaan iyo riyana may ahayno nimankii gaalada ahaana waa dee rasuulka ku caarideen aad iyo bishidda weliba waana ku dhibaateeyeen dad islaamka soo galayna waaba ka ridoobeen waxay diidan yihiin isagoo gogashiisii laga qaaday waxaasoo aafaaqa la mariyey iyadoo dirin lagu soo celiyey say ku dhici karaysa baytulmaqdis ku tego bilaan u soconno bidna ka soo soconno say ku dhici karaysa labadaa bilood iyo weliba samada haddii la dhan riyay ahaan lahayd waa yaqaan mana dhib ma la odhan lahay riyada waa riyoona anagu aafaaq badan baanu marnaa bay odhan karaan waxa weeye laakiinse waxay ahayd maca jasadihii cala saxiixa waa madhabka saxiixa ah min almasjid alxaraam baa laga qaaday ila albayt almaqdis baa la geeyey raakiban buu rasuulku mid saaran cala alburaaq daabadda buraaq la yidhi daabadaasi dameerkay ka weyn tahay markaa malabaqalkana way ka yar tahay waana suxbata jibriil calayhim asalaatu wasalaam waxaanu la socday markaa maciisa ahaa jibriil fanazla hunaaka halkaas ayaa uu ku degay baytulmaqdis la yidhahdo wasalla bilambiyaa ambiyada ayuu tukiyey imaaman xaalu yahay isagaa imaamu noqday warabada alburaaqa wuxuu ku xidhay baabadiisii buraaqa bixalqati baabi almasjid albaabkeedii xalqadda waxaa loo jeedaa albaabkii ambiyaduba ay ku xidhan jireen daabadaha ee baytulmaqdes bartaasaa markaasi lagu xidhay uma curija bihi tilka leylatu isla habeenka laftiisa ayaa rasuulka la koriyey samada min bayt almaqdis baa marka laga qaaday ila samaa addunya markii horeysa xaggan iyo samaa adduunyaha loo kaxeeyey fastaftaxa linabiyi sala allah alay slam nebiga ayuu u dalbay furitaan jibriilu samadan maaha mid la yska galo malaa'ig baa markaasi way xidhantay ilaalinaysa jibriil baa markaa u dalbay in nebiga laga furo fafutixa lahu waa loo furay man ayaa la weydiinaya jibriil waman macaka waa la dareema in cidila socoto markaasuu leeyahay maxamed nebi maxamed baa la socda aw ursila ilayhi miyaa loo soo diray dadka inuu rasuul noqdo samadan maa loo soo amray haa buu leeyahy dabeedna waa laga furaya fara'aa hunaalika bartaa samada koowaad wuxuu ku arkay samaaudunyaa aadam oo abalbashar hunaaka wuxuu arkay aadama abalbashar nebi aadam oo aabbihii bini aadan ka dhalay fasallama calayhi wuu salaamay faraxaba nebiguu salaamay aadam faraxaba bihi wuu soo dhoweeyey yani saadafta ruxban makaanan waasican yani waxaad la kulantay makaan waasica baad la kulantay wey waradda calayhi salaam waa u jawaabay nebiga calayh salaatu wasalaam salaantii waa uga jawaabay wa aqara binubuwatihi nebinimadiisana waa u qiray wa araahu allaahu ilaahayna waa tusay arwaaxa sacadaa ayaa nebiga la tusay dadka ahlu jannaha ah arwaaxdooda can yamiinihi asxaabulyamiinka marka nebi aadanna midigtiisay fadhiyaan sucaadadu wixii u dhalay nebi aadan hirmadow halkaa midigta ka xiga ay kulligood ku dhan yihin bartaasaa laga tusay markaas weyaan nafihii markaa reer nebi aadam wixii la jannaynayo bartaa midigta markaa nebilaahi aadam wa arwaaxu lashqiyaa kuwii guuldaraystay ahlu naarka arwaaxdood can yasaari bidixdiisa dhuucaa markuu eegana wuu farxaya waa ubadkiisii dee ahlu janno ah dhinacaa markuu eegana wuu ooya nebilaahi aadam kuwana waa ubadkiisii kuwana waa ubadkiisii oday tarmay nin weynoo tarmay nebi ilaahay sharfay mukallam oo nebiima intuu tarmay waa nebi aadam oo wixiiba halkan ka eegaya wixii kalena halkan ka eegaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhinac waa naxdin dhinacna waa farxad halkaasuu arkay kan loo wadaana waa weladkiisii muxuu ku odhanayaa soo dhowow leey marxaban bibni saalix buu leeyay wanabiyin saalix weladkaygii baa tahay oo saalixa nebi saalixana waa tahay saasoo kale ayuu ku odhanayaa sida markaa xadiista ku qoran uma curija bihi ila samaa aaniya samadii labaad baa la koriyey fastaftaxa lahu jibriil baa u dalbay in laga furo waana loo furay fara'aa fiiha wuxuu arkay yaxya ibnu sakariya wa ciisa ibnu maryam laba ninoo habarwadaag oo ambiyada ilaahay ka mid a waa habarwadaag labada nebi falaqiyahumaa wuu la kulmay wasallama calayhima wuu salaamay faradaa calayhi labaduba salaantay ka jawaabeen waraxabaa bihi way soo dhoweeyeen wa aqaraa binubuwati nebinimana waa u qireen waxay leeyihin marxaban bi
أخ صالح بي أورانيا ونبي صالح يقوى ولالك يقى صالح أسوله بيك أورانيا نبي صالحها ثم عرج به إلى السماء الثالثة سمدي صدحات بهذا المركز الكوري فرأى فيها واركي يوسف وكواركي فسلم عليه وسلام يوسف الرد عليه وكجواب مركز يوسف سلام تاسي والرحب به نبي صلاة بلابيا مروربا واللوغة جوابيا مركز اللوغة جوابنا سودوين بالله سمينا وقر بنبوته نبي نمدي سنة وقرأ مرحبا بك أبو الله بابن صالح أبو الله مركز أبو الله ما بيقول بأخ صالح يا نبي صالح ثم عرج به تاسنا سبب صدحات نوح جوج النبي يوسف ثم عرج به إلى السماء الرابعة سمد أفراد فرأى فيها وحكوا أرك إدريس فسلم عليه النبي قال سلامي إدريس فرد عليه إدريس النبي وقال جوابه ورحب به وسود ويوحد مكان واسع لك أنتي وأقر بنبوة نبي من وأقري سمد أفراد النبي إدريس بجوجا ثم عرج به إلى السماء الخامسة السماء الشناد بهدنا لكورية فرأى فيها وحوارك هارون بن عمران نبي موسى ولالك فسلم عليه نبينا السلام عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرد عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ويوجد جوابه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورحب به ونزوله ويحل مكان واسعد لكل أنت وأقر بنبوة وواقر ثم عرج به إلى السماء السادسة السماء اللي حاد بعدنا لكورية فلقي فيها موسى بن إبراهيم وقال موسى بن عمران موسى بن عمران وموسى بن إسرائيل وموسى نبي الله موسى أنبياء غير بن إسرائيل وفركاس فضلك بدنا فسلم عليه النبي قال السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرد عليه النبي والله جوابي موسى جوابي ورحب به سودوين تمركها مكان كواسع وسودوي وأقر بنبوته فلما جاوزه مركي وقدبي نبي موسى كقدبي نبي محمد بكى موسى وأوي فقيل له ألا ويديني ميشة شوكا ده ملايك بجوت ما يمكيك محاكاه يسيبه لقيري محال له أيدي فقال وحنا أبكي وحن له أويا لأن غلاما ويل أو مركاسي بعث لصوبحي من بعده نبي نباني قد بدأ لقو صاري يدخل الجنة وحد جنة جري حال الجنة جري من أمتي ومديسة أكثر إن كبدا مما يدخلها أنت جنة جري من أمتي حق أمتي حق راد معها غلام إنه يري لكن وحويا المركز هو قبطة يمتشير مشروعة هي نعمتها شكري إلهي سبحانه وتعالى مركز هو اعترافه الضوء كاسل السيء نعمة آدوين يسيق يوم الديسة يا قوم ما ونبي كقوم ما نيو ومديس وحاي وين فضلي يجوا أهدو فرابضن ترير الجنة كجلس ورير يهودين إن أنت راعي مركز النبي الله موسى الجنة يجليان الربيسي لكن الرسول كل قادر لو متى صار قادر متى كل الدعوة دي سواجب كوماي هاي ومتى هير بني إسرائيل بيدعوة دي سواجب كوهاي وما ضد مركز تاريخ قديم له ضد مركز عالم كله ده جوكته فرابضن حدنا أنت الجنة جليس هاي بدن كيرتي مدني محمد عليه الصلاة والسلام ومضى السوق عليا وأمبرجونيا أهل النار كالنقطي حق يدي الدعوة قادوا ويدي الجنة دي لوجا بطي يا خير كونه حق يفضل قال السيد النبي الله محمد نواب اعترافه كما حما مرحى سيدي وشرشدنا وانات ولا كان حقي للسيد نعمتها أدو قرصنتها هاي مثل ما تعلان لهاي إلهي كسي تاسو كلوين كانوا مدة النبي للسيد قال إن سنة وحفر بدل أي جنة كلام ومدة سكمدة أي جعلان ثم عرج به إلى السماء السابعة السماء تضبات بالكورية فلقي فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي إبراهيم بقرأ كل ماي فصلى عليه نبينا السلام عليه الصلاة والسلام فرد عليه النبي إبراهيم وقت جوابه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورحب به ترحيب سميه لسادفت مكانا واسعا ويا رحبا مكانك واسعا لها وأقرب النبوة وحلي مركز سودو إن شاء الله كلنتي مكان واسع ابن صالح والنبي صالح ولد كيك صالح ملك وحا كورن يا ملك الجبريل مرولبا السلام هذا أبوك أبولي كان وأبها إبراهيم السلام كوا كلا نبي هذا نصاص كورن يا كوا كلا وأخوك أيولي مركزي سمد مركا وحو كلا كل مي نبي الله إبراهيم سلاسو مركز سودوين وسميي نبي إبراهيم
bayt al-ma'mur ayuu joogaa markaasi dhabarka qiblada markaasi masaajidka ayuu saasoo dhabarka markaa ugu tiirinayay thumma rufi'a waxa loo koryeelay rasuulka ila sidratil muntaha wa shajar sidrada waxaan naqaana ma taqaana geedkan adduunyada ka baxay gobku ka baxo laakiin geedkaas iyo geedkan magaca ka dhaxeeya shaqo isku ma laha المنتهى waxa loogu magacaabay dhulka wixii laga rafciya halka ma dhaafo bartaas lagu joojiya xagga rabbi wixii ka soo degara bartaas ay ku soo intoodaan sidratul muntaha baa la yiraahdaa nin baridaan iyo jirsadina suufi noqdo muriid baa laha markaasuu deeqo waxa uu garanay ma garanay markay inuu dhintaan malaynayo laakiin meel noloshiisa ku dambeysay ma garanay marka dariiqada muriidkeedu waa hayo san ku sheekh dayaxa waxa ka muuqda waa maxay hariyar buu leeyahay dayaxu Soomaa oo Soomaalidu tiraahdo waa geedka sidratul muntaha la yiraahdo waxa waa maxay markaasuu waa sidratul muntaha qasiido ku qaaday oo ku luqeynayo aan garanayn ma سدرة المنتهى سدرة المنتهى وهسي قصيده كويسه قصيده دليليه دغاي marka ana سدرة مالي وسدرة المنتهى حكا قاده مسكين waxba ka garanay bana alxamdulillah law hadan dariiqada ku tagi laha suufi qubuuri baan noqon lahaa maanta ilaaha marka ay fahamsiiyay tawxiidka iyo sunnada rasuulka أحمد الله ونحمد الله تبارك وتعالى كثيرا حمدا كثيرا مباركا فيه كحمد النقع إن إلهي سبحانه وتعالى إذن سيا عافية وحيبا حلاوة يعني ما ركتي قفكم مركا وكهري كمتي إن قال لماذا وحلا ينعضوا نبعاضوا دم إن لقوا توريا دم إن لقوا توريا وكان نبعاضوا أوكلا طبعا دعبت لقوا تورا قال لي إلهي كبد بعديه وضلت يا ضوء إسلامه أهل التوحيد فضلت كل رأس إلهي أهل التوحيد بقى عنك وقري واضي مطي هذا هو كل من على التوحيد إلهي بقول ليس ما أما مشرك قال بعد عليما كافر بعد علي بأن إلهي سبحانه وتعالى ده أنتوا سوه قام يسدي سلمان الفارسي وأكل بلال الحبشي سلمان الفارسي هالكلا يسوق حي الدنيا دور دم صامر يسمو حق رادينية بلال الحبشي هالكلا قوضي جيس كنا يتشوق سهيب الرومي يلا طفي سقايا dhulkii markaas mushrikiintiis ruumiyiinta ayaa laga soo kaxeeyay nabiga loo soo hogaamiyo kabcada loogu keenay markuu soo baxay waa kan rumeeyay baanay waa rumeeyay ilaahay baa ka soo badbaadiyay Soomaha markaas sidratul muntaha way ka sareysaa samooyinka oo dhan dayax bay ku taalaa waxa kama jiraan marka sidratul muntaha la yiraahdaa ayaa rasuulka loo koryeelay fayda nabquha nabqu waa gubka miswaaba midheediyo mislu qilali hajar hajar makan fi bahrain meel bahrain ku taala nimankaas ay gaalada deganaayeen way meesha hajar la yiraahdo qilaalka jilxadaheed ullatun bala jamciyay jilxada marka culus ninka marka biyo ku jiro dhulka dirqu kaga rojiyo baasha la yiraahdaa culimadu waxay leeyahay farabadnaanta jilxada farabadan bay sameeyeen jira caalamka oo dhan ay ka iibin jireen farabadnaanta waxa la moodaa ama culimadu waxay leeyihiin xagga waaweynaanta midhaha gubkaasi jilxadaasi la leeyahay wayda waraqaha wa iyadoo caleynteedu mislu aadan alfiyala wa jam'u fil fiyaladu murudiyaashu baad dhigahooda balbaadhan oo kale caleyntiisu shabahdo thumma ghashiha waxa daboolay geedaasi yafaghashiha ma ghashiha وقرآن كوالله وشيء غشيها واحد دبولي فراش وبلنبالس من ذهب رسولك سفيه بلنبالس ذهب صلى الله إن دبولي والنور يفتي النور وألوان يمي دبوح صفين كرعاني يشيرون وكل دول فتغيرت ويسبد الشيء جيد جيد فما أحد مجرى الروح من خلق الله مخلوق الله كمدا يستطيع أودي كريا أن يصفها إنه بالتلمامه من حسنها ونجدة احتفال كيسو دويته هو شيء مشروعه dadka mudan ee ahlul karamka ee culimada in la soo dhaweeyo
iyo madaxdu markay yihiin kuwii geeya hadday geeyaan in la soo dhaweeyo lama diidana laakiin inay israaf noqoto waxyaabo munkaraada lagu daro ayaa la diiday nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam diyaafad baa loo sameeyay iyo soo dhaweyn laga bilaabo gogoshii laga qaadayay ila baytul maqdis oo ugu tagay ambiyadii oo loogu rigeeyay oo markiiba dabadna rasuulku uu tagay 2 ragcadood buu tukaday ambiyadii buu tukiyay muwaajib buu ku tukiyay mise sunne neeloma shay ambiyadii oo dhan buu imaamu noqday macnaheedu maxay ka dhigan tahay in ay mas'uuliyadii risaaladeed ee dacwadeed rasuulka lagu wareejiyay oo la yiraahdo idan caalam oo dhan saqalay waxa waajib ah inay maxamed raacaan kuwa leh ahlu kitaab baa inay maxamed raacaan ila risaalada waa ku wareejiyeen ambiyadii oo dhami diimaha bay ku leeyeen maanta samalatul adyan taakhi bayna al adyan saaxiibnimada diimaha walaalaynta diimaha markaas idaacadaha la leeyahay waxay ka baxayaan wadamo islaama ayaa laga soo deynaya madooba waxaas ilaa ku dhashay diimaha la walaalaynayo waa maxay bal isheeg diimaha la walaalaynayo diimaha la walaalaynayo diin waan garanay waxa weeyaan diin tawxiid la yiraahdo sooma tufridu allah tabaaraka wa ta'ala bima yakhtassu bihi ilaahay markaas rabbinimadiisa ilaahnimadiisa asmaadiisa sifaadkiisa iyo xalaala wixii ilaahay markaas uu la kariyahay oo dhan daatadiisu la gaariyahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa aqwaashiisa xalaala wixii ilaahay la gaariyahay oo dhan ayay u kariyeynaysaa diinna waxay leedahay in allaha thalithu thalatha waxay leedahay markaas ciisa ibn allah ciisa huwa allah thalithu thalatha diin waxa ay leedahay usayr ibn allah yahuudiya waxay leedahay ciisa ilaahay noo ah kristaan waxay leeyihiin ciisa ilaahay noo ah inanka ilaahay bana caabudayna bay leeyihiin ee la dilay dhintay inaga darteesaanu janno u gallo oo dambigeena loo dhaafo ay sheeganayaan iyo diinta tawxiidka ma laba la walaalayaa meel isugu keenaaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un markaasay ku hadaaqayaan kuwa islaam sheeganaya maanta iskaga kale qaar islaam sheeganayo calmaaniine qaar la waliba markaas iimaanu nahay oo culimaanu nahay oo maalinna marka xafladda kaniisaddan tagaynaa maalinta ay Christmas day wataan maalintaana kale boobka soo kaxaynaya oranaya masaajidkayga kaalay in lagu cibaadeysta oo diimahan walaalinayna marka rayul caamka umada ayaa la luminaya islaamka walaaleey diimu waa diimo siman waa diimo samaawiya ilaahay bay wada rumaysantahay markay ku dhaahdaan ilaahay ma wada rumaysanayn waxaad leedahay mar rabbuka man ilaahuk balada yaani magacaw ilaahaga waa inuu ku dhaadaa ilaahayna waa ciise dadba anaga allah waa rabbul kown anaga kay waa rabbul kown ciise adoomada kamida ilaahay uu nabinimo ku sharfay rasuulnimo aan ugu naqaanay dibarta iska joog iska tag marka isku ilaahay ma nihin Soomaalida laga dhaadhicay waxa qorma taqaan deeyigu ilaahay uu rumaysan yihiin nabi maxamed oo bay ka baydeen allah uu rumaysan yihiin say rumayeen ilaaha marka ilaahay rumaysan yihiin koonka inuu rabbi abuurtay ma diidana laakiin ilaaha la caabudaya isaga ma ahabay leey kii bari halkan loo jiray ma taqaana roob la baxay robad ayaa dadkii la dooday ayaa nooga warbay la dooday iyo dadkii dawarsanayay wax weydiisanay dhakhtarka ugu yimid wuxuu qaybinay ayaa wuxuu ku yiri ma taqaana koonka ilaahay baa ka shaqeeya la ilaa ciise ilaaha weyne buu waa hawlgab meel buu iska fadhiyaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ta'ala allah amma yasifun ilaahaas meel buu iska joogaa shaqo ma qabto ilaaha shaqeeya wax caafimaadiya wax bukaysiya wax arsaaqa wax in marka adduunyada koonka kala dabara waa ciise rumee buu yiri raxmadda ciise ku soo gaari doonta arsaaq baad heli doonta lacag baan ku siin doona rumee buu yiri marka ku qosalde dhowr iyo tobanka Soomaalida inta shaashada soo taageen sariibka halkiisa isku sawiray ee yiri makaan runtii helay xaqiiqadii baanu helay raxmadii ciise adduunyada dhan baan ugu baaqaynaa inay raxmadda ciise rumeeyaan ciise ilaahayna abilaan ciise ilaahayna qaar baa la hadlay habartii hambaaburtay leeyahay baarlamaan bay ka hayd Soomaaliya
ayaa dib loo canaanto haddana iyada baa lagu tusayaa baa lagu leeyay lagu maqashinayo dib u baraanbarayso la leeyay waalay maxaan ku hadlay isma kala garanay caynkaanaha ayaa haddana leeday baa lagu leeyay markay dib u noqdaan hantidan qaata ma sanbaaladin siinay sharci baaladin siinay tacliin baaladin siinay xogaa yaroo yaan maqriyada la tusay hadhow markay dib gurigooda ugu noqdaan ay odhanayaan nafteena been u sheegin waxa iskaranayeen naftooda been u sheegeen intay ujeedada kala hayd iclaamkaasay ka duubeen soo ma arkaysid iyagu shaashada ka dhigeen intaasoo Soomaaliya inuu la gumaysanaysan isticmaalka inuu soo hayst balsheeg 100 sano Soomaa 100 sano maalintu mustacmarka Ingiriisku yimi horta bal wixii hore iska daa ay noo yimi gumaysayaan 100 sanadood baan gumaysanaysay oo kristaamay nagu wadeen maxay hayeen maxay soo bandhigeen dhowr iyo 10 qaar badan dib uga noqdeen ilaa 100 sanadood dhowr iyo 10 wax ka badan haday hayaan maanta haday kun hayaan kun kaba saasay shaashada soo dhigi lahaayeen haday 200 hayaana haday 100 hayaana 100 kaba shaashada soo dhigi lahaayeen zero way intana way soo lugooyeen inta noo dhaxbay raadon shaashada soo saareen waxa ay sheegteen qaraaratu naftooda ku boorinaysa ciise ilaah ka dhigan oo rumaynay runba kama aha laakiin calmaanina waxba aaminsaneen oo ciise ma rumaysan adduun baan qaadan inuu jeedaan oo meesha ka cad diima la walaalinay ma jira ambiyada halkaas uu ku tukiyay salaad buu tukiyay dadna xilkii baa lagu wareejiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam xilkii ayaa lagu wareejiyay halka markii uu joogay waxyaabihii uu la kulmay aayaadka hada waa inoo soo socdaan sadratul muntaha iyo geeda sifadeedii soo dhaweyntii halka laga bilaabo baytul maqdis sabadii baa la koriyay malaa'ikta meel walba ku soo dhaweysay soo dhaweyntii waxa kamid ah sadratul muntaha sida loo qurxiyay iyo diyaafada nabiga loo sameeyay kaleey salaatu wasalaam wabiyaashi oo dhan ayuu dhadhamiyay kuwii jannada waxa khamriga ka ahay dhamaan wabiyaashi uu dhadhamiyay kii malabka ahaa kii caanihi uu ka dhargay malabka iyo yarbu ka cabay nabiga kaleey salaatu wasalaam caanihina bartaas iska taabtay markaas la ka kala weelka maxaad u qaadan weyda khamriga baa ku jira sulu waa dhargay sumalku jibril ku farxaya oo alxamdulillah ilaaha ka badbaadiyay khamriga inaad cabto khamriga jannada lagu cabaya laakiin adduunyada haduu cabi lahaana maarinta umadiisa waa loo fasix ilaa way cabi lahayd hadii cabtana dawa baabiil hay soma waa saqraam lahayd gibiga waa la dahabkaas marka ay nuurka ay alwaanka isla wada bedeshay cid sifayn kartayna ma jirto thumma rufi'a lahu qurb weeya waa loo soo dhaweeyay baytul ma'mur baa loo soo dhaweeyay samada toddobaad buu ku yaal riwaayadka qaar baa samada lixaad sheegay raajix waa samada toddobaad وإذا هو يدخل وبيت كاسو يجليان كل يوم المالول بو حجليا 70000 ملك تضباط كل ملك با جليا ومالين كستا ومالمها ادويده ودغ ثم لا يعودون ما سو نقدان تضباطك كغمبا ثم ادخل الجنه لجليا جنده فاذا فيها مسوى حبا جنده دخليده ku yaala حبائل اللؤلؤ جنابذ اللؤلؤ بالروايات كصحيح قاركوس شيغان جنابذ اللؤلؤ سبخاري كو كلي سو ورسارين مسلم كنا كجرا جنابذ اللؤلؤ وحيا جنابذ كلمه تقانا وقبان قبضه من لؤلؤ اويا قبضه اللؤلؤ روايه علماء waxay sharaxda xadiisku waxay leeyahay حبائل اللؤلؤ وتصحيف جنابذ baa laga soo tasxiifiyay رواد قلدي جنابي بيهد حبائل مها ساسي لي لكن حبائل هذه لو فسرنا maxay noqonaysaa وقلايد weey كورو waxaan qoorta la gashado shuuliyal bad hadna waxaan qoorta la gashado silsilado kale waxaan qoorta la gashado kale qalaayid waxaan kuulaha qoorta lagu xidho kale kaas weeyaan waxa kale xabaailka la yiraahdaa tuurarka buuraha ah ee niista ah ee aan dhagax ahayn waa weyn dhaadheer ayaa la yiraahdaa waxa soo wada luula ayuu rasuulku arkay markaa weey wadani tasxiif ahayn وإذا ترابها بس جنده وعرضيده waa almisku safra way midabkeedu cas udugana waa miskiga waxa la dhaahdo urija bihi waa la koriyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam xaga kore hatta dhahara uu markaa dulmar uu kor noqday rasuulku kor noqday limustawid limurtafic makan murtafica oo sare kaasoo yasmacu maqla fihi makaanka dhexdiisa sariifal aqlaam sanqadha qalimada weyn malaa'ikta lawhul mahfuudka qoraysa amarka ilaahay sanqadha markaa qalinka uu sameeyaa sariifku weyn aqlaamta kaasoo maqlay
halkaasuu tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu haddii lagu weydiiyo makhluuq ilaahay abuurtay maxaa ugu fara badan isku wada dar kul xalaala wixii ilaahay abuurtay jinsta qariin iyo qayrka isku dar yaa ugu fara badan malaa'igta ugu badan wax la tira koobi karaba maaha bal maalmaha adduunyada oo dhan iska daa wax kale maalmaha adduunyadu jireen maalin kastaba 70 kun ku dhufo laakiin maalmuhu waa imsa talo wax la tirin karay miyihiin maalin walba 70 kun ku dhufo ilaa way galaan kuma soo noqdaan qaar cusub baa galaya kuwii maalin galayna maalin daba kuma soo noqdaan malaa'igta way cibaadaystaan malaa'igtu sida dumaduna cibaadaystaan malaa'ig buu arkay meesha ku cibaadaysanayo farabadan 70 kun ka baxay 70 kun oo kale ka baxay 70 kun oo kale maalin walba wuxuu arkay malaa'ig markaas qiyaam taagan wuxuu arkay malaa'ig rukuucsan oo aan ka toosaynin malaa'ig sujuudsan oo aan ka ahaynin aan fariisanahayn mid sujuudsan oo sujuudda ka toosayn mid rukuucda ka toosayn inta oo salaada ay sifaynu marka qiyaam iyo haday tahay marka rukuuc iyo sujuud iyo uu arkay laakiin wixii cibaadaadka malaa'igta soo dhan ilaahay uu soo jabciyo ummadda nebi maxamed salaadeena ku jiraan haday qiyaam tahay haday rukuuc tahay haday julus tahay haday sujuud tahay intii oo dhan bay sameeyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda soo jabciyo ثم عرج به الى الجبال الى الجبار جل جلاله حق اله الجبارك حق سروي حق الله سبحانه وتعالى يسرى اله جبارك يعني markaas quwada iyo qahriga badan li xaqiisa loo kareeray fadara minhu wadawaaday ilaahay hatta kaana uu jirsaday qaaba qawsayn qadra qaaba wa qadra qawsayn laba qawsaynka labadan qaasada labadeedan dacal labadeeda afam labadeeda gad inta isu jirta in leeg buu jirsaday aw adna ama uga sii dhow فأوحى وحيودي أن إله سبحانه وتعالى إلى عبد أدونكيس ما أوحى وحيودي قرآن بو وحيودي وحاني من كل شيء من عجائب أيضا وفرض عليه واجبية يسوي كركيس 50 صلاة كنت صلاة فرجع وصلى عبد النبي محمد حتى مر على موسى والنبي موسى صامري فقال له حكوري بما أمرك ربك ربك صامري قال وحري ب50 صلاة كنت صلاة بالله صامري قال وحري إن أمتك لا تضيق ذلك مكاني كرت كنت صلاة هبينك ما أنت تكتو هبينك ما أنت كسان تكرين أبو الرسول قوش شاهد وحر مكاني كران ارجع إلى ربك كنه فاسأله ويدي التخفيف لأمتك أمت هذا كخفيفيه فالتفت الديموضي إلى جبريل بالديموضي كأنه يستشير حاله كشبهي إنه لا تشنيه في ذلك النقاشة أو جبريل لا تشنيه فأشار وات المامي جبريل تلمام بكو بحيا نعم ها إن شئت هذا دونته وكنا قنقرنا oo miyaanay ahayn marka arin ilaahay soo waajibiyay maxaa ambiyadan ku yiri markaasi marka talada inay ku darsadaan de waa mid ilaahay marka horeba ku ilhaamiyay oo ilaahay qadaray oo ilaahay san ugu talagalay inay marka sidaas soo marto oo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam soo noqdo laga khafiifiyo fa'ala bihi jibril wala kor noqday jibril nabiga hatta ata bihi al-jabbar ilaahay jabbarka ha uu la tagay tabaaraka wa ta'ala wa huwa fi makanihi isagoo meeshiisii ku sugan hada lafd al-bukhari buli fi ba'd turuq duruqda qaar kood baa imaam bukhari ku wariyay hadii damirku de aqrab madkuur buu noqdaa fi makanihi aqrab madkuurna imka wuxuu noqonayaa al-jabbar de marka maxay noqonaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala jiha uluwiya oo ku sifaysan inuu sareeyo إلهي سبحانه وتعالى تتاسم لو جيدا جهادي سره ee uu ka yimi ilaahay uu ku sugnaa culuwigiisa ayuu ku noqday di marka jibriil loo jeedo wax dhiba male iyadoo marka iska caday فوضع عنه 10 صلاه با laga soo dejiya fartan bay noqotay thumma nasala hatta marra Musa bin Musa hatta Musa diga ila Musa soo maray fa akhbara uga waramay faqala wuxuu irji ila rabbika fas'alhu khuna rabbiga weydiisa takhfif falam yasalka mas'uliyya taraddad inuu noqdo bayna Musa wa bayna Allah azza wa jalla inta nabi Musa ilaahu dhaxaysa hatta jacala 5 oo ka dhigay 5 salaadood oo kaliya wixii kale oo dhan laga soo dhimay
فأمره موسى بالرجوع مركل أيها الدنا أمر النبي موسى الله بشر وسؤال تخفيف الله ويديستين وصا خفيفية فقال وحده قد استحييت النبي محمد وان حشودي من رب كي ولكنها يشاء أرض الرالبة نقونيا وأسلموا وأنهم قاسمة يا أمرك الله ساسا مركز سكو قاعدنيا شنتي صلاة النبي محمد الله صلى الله عليه فلما بعد مركي وديرادو كسو فقادي مركا halkii ambiyadaasi ay joogeen نادى مناد waxa dhawaaqay mid dhawaaqa waxaana ilaahay yiri qadam daytu waan socodsiiyay fariidatii waajibkayga aan waajibiyay wa kuntankii salaadood ba sidii bay ku socday weey wa khafaftu waana fudaydiyay aan cibaadi adoomadaydi intaha saadul maadka ayuu ku sheegay ibn qayyim markaasi riwaayada xadiiska saxaaba markaasi ay tilmaamayaan ثم ذكر ابن قيم وحو شيغay khilaafan u dhaxeeya culimada fi ru'yatihi rasuulka aragti inuu arkay sallallahu alayhi wasallam rabba tabaaraka wa ta'ala rabbigiin arkay in kale ثم ذكر كلاما بو sheegay hadal uu leeyahay ibn ثم ذكر كلاما بو sheegay ibn taymiya usugan bi hada sanad oo marka mawduuca muqaabilkiisa ah kan kaga waramayo وحاصل البحث قبل بحثنا waxay tahay arinta baaritaankeeduna ru'ya aragtidu bil ayni ee indhaha uu ku arkaa lam tasbud aslan rasuulka ma sugnaanba وهو قول لم يقله وانا قول انا order ahad min as-sahaba qof saxaabada kamida laga hayo inuu indhihiisa ku arkay madaxiisa ku yaala wama nuqira shayga la soo reeyay ibn Abbas laga soo reeyay min ru'yati rasuulka inuu arkay aragti mutlaqan muqaydin ru'ya qalbiya indhaha mid aragti uu buuri iyo ru'yati aragtida rasuulku oo arkay uu ku qeyday bil fuadi uu qalbigiisu ku arkay fal awwalu ka hore la yunafi kama hore maraya athani riyada mutlaqa ah iyo tan muqayyadka leeyahay qalbigiisu ku arkay ra'a bi fuadi iyo tan leeyahay ra'ahu uu arkay oon labadu iska hor iman ma inta horiyada dambe laana mutlaqa iyo muqayyadka waa la isku qeydaya oo taa mutlaqa wuxuu bay ka dhigantay qalbigu baa loo jeedaa إني رأيت نور بو الرسول كل إني رأيت نورا أنا نور باركي ربك أركتي بالي أبي دربا ويدي مركز سوري مركز يانو نور باركي نور أنا أراه وابا النور بو الحجاب كيس الصنوار كريا إلهي سبحانه وتعالى ما أنا ركب بولي أنا نور بارك نبي محمد صاحب الحال اشتغل الشيخين أنا ربي أرك لما دي سنو ده مدي حيسكو يالا لكن حق صري يدول كما مركو تشوغي وأركي قلبي جيسا رؤية قلبية أيوكو أركي أما سينديه سكما أرك وما قوله تعالى في سورة ثم دنا فتدلى ثم دنا وانا وهذا فتدلى ما يقول جبريل وي وسودقه حق سلوك سود وهذا فهو غير الدنو وابدا هين دواشها الذي كاسوا في قصة الإسراء قصة الإسراء مولاه ما هكا سورة النجم كجرة فإن الذي في سورة النجم دواشها سورة النجم هو الدنو جبريل وجبريل بلغ سود وهذا الرسول قارح الأمر وكصبح وتدليه يولي بس ودادقيد وحق سرك كسو دواده رسولك كما قال عائشه سي عائشه شيخته وابن مسعود وشيغي والسياق يدل عليه حبك والنصوص تنوسعتنا وتصنيسا عينكا واما الدنو والتدلي لكن دنو يتدلق دعي سو دواانته iyo soo daadagid iyo soo dhawaashaha dhacay fi hadith al-isra ku dhacay fadalika sarih wuxuu ku cadiyay buu yiri fi annahu dunu rabbi tabaaraka wa taala in rabbi uu soo dhawaaday ilaahi subhanahu wa taala uu soo dhawaaday وتدليه حق سرنا uga soo dhawaaday tadalligu waa xaq sare uga soo dhawaado hoos uga soo daadago ولا تعرض في سورة النجم لغما عارضة لذلك لبدا أرمد اسكما هوري مريان بل فيه waxaa ku jira annahu ra'aahu arkay malaga naslatan ukhra markale inda sidratil muntaha buu ku arkay markii dhulka ee qaarixraa ka soo baxay nabigu iyo marka sidratil muntaha la joogay wa hada huwa jibril ra'aahu muhammad wa jibril kaasi oo ra'aahu jibril waxa arkay muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad baa arkay ala suuradiisa malagnimo marrateen laba jeer marratan fil ardi mar dhulku ku arkay oo marratan inda sidratil muntaha marna markuu joogay sidratil muntaha wallahu أعلم انتهى كلامه wax aragti oo dhacay ma jiro nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam oo rabbiga uu arkay adduunyada ma badhicin indhihiisa uu ku arkay madaxa ma badhicin qalbiga mooyaane cid kale oo lagu muransanay ma jirto nabi muuse markii uu ku arko waa tii buurta aragay haday sugnaato waad arki taasna ma dhicin ba adoon arkay ba taruna rabbakum hatta tamutu mara arkaysan rabbigii baa la dhimataan nabi maxamed khilaafkaasina
saxaabada haduu jirayna markaasi waa iswaafaqeen inaanu nabi maxamed arag labadiisa indhood rabbigi ku arag isaguna uu sheegay qoliyaha laga wariyay ruuya mutlaqana si Abdullah ibn Abbas waxa lagu qaydaya taa qalbiga oo kaliya mid kale ma jirto labada goorba samada iyo dhulka labaduba markaasi waa malakul jibriil halkan uu leeyahay markaasi in qaaba qawsayn buu jiray kana qaaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha culimadu waxay leeyihiin cidda u dhawaaday waxa uu yahay markaasi waa malakul jibriil cidda markaa waxyootay wixii Ilaahay u soo dhiibana waa malakul jibriil sida markaasi suuradaha quraanka markaasi ay ku cad cidda warkeen markaa labada goorbana waa malakul jibriil rabbigiina markaasi moo arag rabbina waxa la arki doonaa markaa aynu dhimano dabadeed mahsharka qiyaamada iyo jannada oo muuminiinta mutaqiintu ay ku arki doonaan وإنه سعد درسك إن شاء الله بالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك